كان maanta waxaanu ku qabanaynaa shir jiraayid oo kadib shir madaxweyne ku xigeenka ahna ku soo madaxweynaha dawladda Puntland oo maanta isugu yeeray golaha wasiirada qayb kamid ah oo looga hadlayay xaaladda degdegga ah ee qusaysa dadkii Soomaaliyeed laga soo raray magaalada Laascaanood loo soo raray dhankan kale ee Puntland oo labadii bari la soo dhaafay ay dawladda Puntland u sameynaysa qaabilaada sida la wada socotaan hameyn hore waxa soo gaaray gobolka Mudug khaasatan degmada Gaalkacyo dad tiradoodu ay gaarayso 112 qof oo isugu jira caruur hooyooyin iyo dad waayeelay rag intaba dadkaas oo ahaa qaybtii koowaad dadka laga soo raray magaalada Laascaanood run ahaantii dawladda Puntland anagoo si gaar ugu mahadcelinayna maamulka gobolka iyo kan degmada iyo bulshada degmada Gaalkacyo iyo gobolka guud ahaanba si waxa loo soo dhaweeyay aad u heer sareysa waxa loo sameeyay dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegga ah in la gaarsiiyo caafimaad degdegga dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdegga sida biyaha iyo cuntada iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahayn dad aan xataa gogashoodii wadan oo iyagoo suuqa maraya la soo raray in loo fidiyo gargaar degdegga haatan gacanta lagu hayo dadka raba inay ayagu danaynay inay hore u sii gudbaan gobolada kale Soomaaliya ay aadaana loo fududeeyo safarkooda dadka doonaya inay deganaadaan oo joogan Puntland gudaheedana ayadana loo fududeeyo sidii ay ku degi lahaayeen una heli lahaayeen wixii gargaar ay u baahan yihiin deegaankoodaas waxa kaloo jira xalayna inayna soo gaadhay tiro aan hadda wali tiro koobka la soo afjarin laakiin ilaa 700 oo qof lagu qiyaasay hadda oo haatan aan idin la hadlayno gacanta lagu hayo magaalada Xarfo gudaheeda meel la dejiyo baabuurtii laga dejiyay cunto iyo biyo iyo loo qaybinayo qorshuhuna yahay iyagana sidaas la mid in la weydiiyo ku talagalkooda cid rabta inay sii gudubto oo Soomaaliya gobolada kale Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya u gudubtana in loo fududeeyo safarkooda inta hadii la ahayd ma joogaysa Puntland danaynaysana in ayagana loo sameeyo dejin iyo maxalliga wixii gargaar ay u baahan yihiin gacan la siiyo run ahaantii mar labaad iyo mar saddexaad waa bogaadinaynaa shaqada hameyn iyo maalinba socotay ay gacanta ku hayaan maamulka degmooyinka Xarfo iyo Gaalkacyo iyo gobolka Mudugba maamulkiisu iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee dhinac taagneed iyo wasaaradihii hay'adaha kala duwan ee dawladda gacanta ku hayay iyo cid gacan ka geysatay dadkaas sidii loo caawin lahaa xaaladooda ay runtii emergency ahay markii laga fiiriyo dhinaca binaantinimada waa xaalad runtii aad u adag waxaan rajaynaynaa hadii la ahayd dadkaas inay ka soo kabtaan intii safarka ay ku jireen culayska ay soo mareen iyo dhibaatooyin kale ay soo wajaheen maadaama ay jiraan qoysas xataa ayaga iyo ilmahoodii ay kala qaybsameen oo qaar waaridkii meesha maray ilmihii ka dambeeyay baabuur kale lagu soo rarayay qaar ilmihii socdaan waarid ka dambeeyay oo baabuur kale safar dambe sugay inay soo galaan runtii insha Allah waxaan rajaynaynaa in xaaladoodan ay caadi ku soo noqoto qoysaskuna is wada helaan noloshooda iyo maxalliga xasiloonadooda deganaanshahooduna ay caadi ku soo noqoto hadii la inta danaynaysa inay sii gudubtana dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay la fududeyso safarkooda maamulada kale ee walaalaha ee dariska nahay sida Galmudug kalena aanu ka wada shaqeyno sidii dadkaas ay si maxal yiraahdo nabada ay u gudbi lahaayeen meelihii ay danaynayaan ayagu inay safarkooda ay ku gaaraan shirkan hadda aan ka soo baxnay ee madaxweyne ku xigeenka ahna ku soo madaxweynuhu uu jeergareynayay ama gudoominayana waxaanu ku go'aaminay in dhammaan dawladda Puntland hay'adaheeda dhan laga wada shaqeeyo dadkaas sidii loo garab istaagi lahaa caawimana loo siin lahaa hadii lahayd ma ku filan ayadoo taa laga jawaabayana waxa jiri doona wafdi heer wasiirada hadii lahayd ma u safri doona degmooyinka Xarfo iyo Gaalkacyo si ay qayb uga qaataan shaqada halka ka socotay dadka lagu caawinayo waxa kale oo xusid mudan dadku inaysan wada ahayn oo kaliya Soomaali ay jiraan dad xataa ajaaniba Oromo ku jira dad kale waxa ku jira Soomaali ka soo jeeda Ethiopia dadkaas qolo walba xaaladooda ayaa si gaar ah loo galayaa meelaha ay danaynayaan inay ay ku noqotaan oo